أنا وحلي هذا فوق لكن واقع يضع هوتيل في عنا ويكاد سنين ولو سفر كان يقول دنبيي هوتيلات دنا يوذا بحسمين وفودي سعودي يوذا بوحيين waxaan maraynayaa maada gaadhin buurta madaxtooyada macnaha buurta madaxtooyada maanan gaadhin oo horta madaxweynuhu wuu maqnaa Saciid Cabdullaahi Dani waa inaan taageero weeyaan anigu waan jeclaan lahaa inaan la soo sheekaysto madaxweyne ku-xigeenka joogay madaxweyne ku-xigeenka mar baa la ii ballamiyey ballantanadii way suurtageli weyday ma aqaana inuu bow ka saartu saameysay iyo inay cilad kala timid laakiin waxba is qaban waayay baa leeyahay aysan hadii sheegayso dagaal bad la gashay nimanka kale muhiim ah inay madaxdu ku soo dhaweysay magaalada inay ku soo dhaweysay magaaladina bowda ka saartay dagaal bad la gashay magaalada waayo waxaan ka dareemaynay saxmadda meediyaha nu ka aragnay nimankaasi wad la dagaashay nimankaasi lama dagaalin meesha taageerayaal fara badan baan ku lahaa nimankaasi waxaad moodaa inaynan kaftanka iyo waxyaabahaas inaysan dulqaad badan u lahayn baad moodaa waxaad moodaa nimankaasi inay waxoogaa in laga ilbaxsan yahay sababtoo marka qaarkood saan kuu sheegay muqdisho markaad joogto horta waxay aad ugu doodaan caasimadda ha laga soo raro xamar oo garow ha la keeno ma maqasho doodaa ma maqasho horta aad bay social mediaha uma badnid baan u malaynayaa doodaasi soo dhigaan oo inta badan Soomaaliya waxay la hagaagi laadahay caasimada ha laga soo bedelo garow ha la keenay ma caasimada jawhar la geeyay waan maqlo meel kale ha la geeyo waan iyaga u badan laakiin inta badan dadka sheegta anu waxaan leeyahay garow caasimada Soomaaliya ma noqon karto ma laga yaabaa hoteeladan faraha badan bay inay halka u diyaarinayaan waa suurtagal laakiin ma noqon karto sababtoo waxaa la rabaa dadka caasimada joogaya waa dad dulqaad badan weey oo ilbaxa oo daxiin oo wax walba u dulqaadan kara oo adoo caayahaya ku soo dhaweyn kara la rabaa moogta nimanka video yar oo magaalada dhakada ka duubay حتى دتك عادي يعني وضد اسكم أجمرينه يعني سلامينه بو صديق واقف سلام في عنتهاي تبو لكن مقالة ما حد كركو قدوب تلاقى مضو بابا إلى هاين عادي ورتاد كان لنا ها فيديو غير كواد هلا محيا هاين أروح كلنا قال هلا فيلسوفر دمبان هاي أو تشجع يدين كي يمي يا سوي حكي بحاذي قداي ما يمكن كذا مهل دق بضحكوا بقشان أنا قولي إذا يا أبي وقتاي لأن قسلم هي رحنا قفا إيديستو أو إحنا ويدي أو لأن أنا خبير هو يدي يبد بانهاي فيديو يرون بلقي لنا هنا قوري سنين إحنا ويدي بنقولها وقت مرك على كل حال وأني من جبأة ويبقى يحش هذا بس إذا هذا نما قال يقول سوق قادم أنا قصيدة كوا قاني واجي أنت جاي أنا وحلا جايجي سودوين في عن سوريين في عن مرحبين ولا لما وقروح بدل ما كلا كل ما حل فوق بين هاي روحانت الله بكون يستحي طبعا كيف تملا هذا أنت هذا يتعلين إن واقع يضع ما هين ده أنت بس هذه إسبرشة يو حرير كا وناكسين دت كلا هذا مش شخصية ناعت ما مولها هذا افتيض وسامين بكوية راني واسف يعني مركب مقالة ساعة أنا نكرك كم ضوبين ودي ساس ما هين حالة تيدو ما ورني ما نقول بح ما reeb beledweyne anoo dhaliilahaya oo hor taagan oo microphone ka dhaliilahaya oo magaaladoodii wax ka sheegaya يا ليس عبيني ولا لا سعنيو باشال أنا ما قال لي البحث يانيو أنا وني ومبين برقنا على أنا رنت يقوموا نمان كان نمان إهل أن وضع على جناع سيو حياة بدن نقد حيان حشمت فر بدن ينور حيسو لكن ولا جي البحثية إن وحنا وراك إن وحنكون ديننا ونرجع كرافينا إن حرقف من أحمر حرقف كلون ميت كلام كوجو داري هاي markaan ka yaabay magaaladii iyo videoga yar sidii u saameeyay ilaa meeshana de qoys baa daga ana la socotiin kala mooyaan magaalooyinku waxay ku fiican yihiin reer kala duwan inay dagaan qoys baa u badan qoys kaliya ma dagay laakiin qoys baa u badan markaan arintii ka yaabay yaa waxaan go'aansaday maadaama aan waqti fiican hayo oo waqtigii arrimaha bulshada iyo taageerayaashii aan la qaadi lahaa uu ii baaqi garoobay yaa waxaan damcay dadka deegaanka Soomaalida ka soo jeeda ee halka joogay ganacsiyada iyo waxbarashada iyo arrimaha kale u jooga inaan la kulmo dadkii baan kulan ugu baaqay kullu meeshan iga warramo waa fahmi lahaayba marka sawirkii aan ka haystay sawir aan ahayn oo qurux badan bay iga siiyeen sax waxaan la kulmay sheekhi magaalada oo asal ahaan deegaanka ka soo jeeda
sheekh dahabi la dhaho sheekh dahabi Ah. sax wey haya niman ganacsato ah niman dhakhaatiir ah oo ka shaqeeya maaragtay dowladda u shaqeeya bajaajlayaal dad kala duwan oo xoogsato ah odayaal dadkaasaan la kulmay inkastoon jeclaa dad isku dhaf ah oo kala duwan oo ay hal reer u bateen qaraabaday u bateen anu moogtahay qaraabadu waan ballaarsaday moogtahay waxaan jeclahay baashu in meelo kala duwan laga yimaado laakiin waxay dhaheen waqtigaadna siisay baa aad u yaraa oo internadii markaa taleefonka kala haynin baa nimaadnay Iswacnay. calaa kulli xaal waan uga mahadnaqayaa waana salaamayaa marka waan ka waraysto waxaan ku yidhi war meeshu waa sidee oo de meeshu meel lagu noolaan karaa ma ahe waa fikraad qabtay de fikirkan qabay de anu waxaan jeclahay inaan dadka fikirka la wadaago Haya. hal meesha iga warrama warnima adaa buufis qaba bay igu dhaheen meesha saad moodaysa maaha dadkan dad wanaagsan oo gob ah oo xadaariyiin ah weeyaan bay igu dhaheen oo lala noolaan karo dadka deegaankana ixtiraam fara badan bay u hayaan bay igu dhaheen oo gooni ah laakiin waxay aada usii jecel yihiin bay dhaheen dadka manaafacaadka leh sida may fahmaysaa dadka wax bartay Ah. sideedoo kale dee jeclay dheheen iska soo shaqo tegay iska xoogsiga ah ma jeclay dheheen dadka wax bartay manaafacaadka u leh deegaamadan ee horumar iyo wax ku soo kordhinaya bay jecel yihiin baa la yidhi way aada usii ixtiraamaan laakiin dadkao dhan ixtiraam bay ku leeyihiin haddii maalan lagugu xadgudbana oo aad cadaalad doonatana cadaalad baad heli oo haddii xataa ay dad kugu khaldamaan odayaal baa jooga dee deegaankan kasoo jeedo oo xaggaasoo odayaashaasaa la diri nimanku waxay leeyihin dhaqan iyo isma aad u adag asin iyo dhaqamada oo dowladda xataa marka qaarkood ka awood badan waa run oo aan hadal lagu soo celinin bay leeyihiin oon aaminsanahayba dee mararka qaarkood siyaasiyiintu markay dowladda kala durkaan nimanka kusoo celiya godkooda inay iyaga yihiin waa run wey ya oo aad u adag waan ogaa haa waan iloobay dhalinyaradii farsamada ii qaabilsanayd baa yaa arrintaa ka gaabiye islaan ciisana inaan la kulmaan rabay haddii uu magaalada joogo sax marmar buu iska baxbaxaa baa laygu yidhi oo meelo kale u aadaa sax oo magaalada ka baxsan marka nimankaasi sawirkii aan haystay sawir aan ahayn bay sawir aan ahayn bay siiyeen way ka mahad sheegteen bulshada iyada qaar baa ganacsataa qaar baa macalimiina macalimiin badan oo diinta wax ka dhiga xagga baa jira imaamyaa jira haddii la yidhahdo mu'adinaa jira kuwo waxaa jira halkan ka baxay oo xaggaas geela raaca xataa geela xaggaa lacag baa lagu qaataa geel jiraha deegaanka waxaan ka yaabay inay wada safraan dollar baa lagu raacaa $150 baa bishii la qaataa wixii geel jireen shaqo hayna xagga ha aado okay $150 bay qaataan waxoogaa waxaa laygu yidhi geel jiruhu markuu geela kasoo tegayo maalan haddii uu ku qanci waayo cidduu geela u raacahayay ee uu kasoo tegayo marmar baa lacagta lagala hadhaa baa laygu yidhi haye arrinta ayadaa baadhitaan baan ku sameeyey ma dhacdo oo haddii lagala hadho odayaal baa arrinkii galo oo waa loo soo qaadaa baa layidhi lacagtooda marka warkaana waan kasoo dabatego waan soo xaqiijiyey ilan dadka ma ogtahay markaad dad la kulanto qaar baa wax kuu sheegi inaad hal dhegun wax ku maqasho maaha baadhitaan baan haddana kusii sameeyaa anigu sax wey ninkaygana nin waxaan ahay aan sahlanayn nimankaasi horta reer puntland adiga reer garowe heshiis baan horta idin dhex dhigi doonaa waanu ka shaqayn doonaa inaanu waan gallo hawsha iyada mar dambana oo si nabad oo xaaladdu ay degan tahayna inaad dib u booqato oo meelo badan aad soo bartaan rajaynaynaa midda kale waxay ku ammaanan yihiin reer puntland garowe waa runtaa haddaa la dhisay gudaha aad bay uga ballaaran tahay laamiyo qurux badan bay leedahay waxaa sii dheer markii maamul goboleedyada kale la tago madaxtooyada puntland aad bay u dhisan tahay aad bay u dhisan tahay waan ogahay waa taan jigjigoo kale hadda buurteenan waa buurtan oo kale iyadana buurta xagga laga yidhahdo waxay u dhisan qurux tahay badan wey si cajiib ah waa maxaan ka wadaa waxay leeyihiin madaxtooyada ugu quruxda badan markii laga hadlayo soomaaliya meeshay say u dhisan tahay guryaha ku yaala iyo magaalada say uga baxsan tahay buurta ay saaran tahay wax walba waxaanu ku ammaanaynaa inay nimanku waa niman ganacsigana ku fiican siday doonaan meelaha kale ha u qasaane iyagu laakiin way xaggooda way ku wanaagsan ismaamulkooda halkaasaan kusoo dhaafayna waad sii socotay waxaad aaday safarkaagii markii dambe waxaad go'aansatay inaad dhulka soo marto oo aad imaato laascaanood ha oo ay igu dambeysay 2018 anoon gaari ka degin aan sii dhex maray oo garowgaan waagaa
usii socday waagii aan 10 kun gubayay bay ahayd marka garowe say hadda tahay ma ahayn laakiin dee xaafadihii waaga aan deganaa xaafadana way hormareen kuwii waagii aan deganaaniyo aad ba uma hormarinba moogtay magaalo walba waxay leedahay dhinacna way hormartaa oo way u ballaadhataa oo way kacdaa jigjiga waa saas oo kale dhinacna inta badan waxaad moodi uun nebi aadan hadduu soo baxo inuu garan baad moodi meelaha qaarkood jigjiga me garowe garowe saan ku ogaa igadan kolkaan saa u fadhiya haddaan qiyaaso labadii daan ay u dhismaysay garowe daantan ay u dhismaysay saa u dhismaysay xagga baalki xaggaana tog baa ka xiga horta xagganna madaxtooyadana buur baa ka xigta xaggan sokana aad uma dhismayn hoteelka marka laga dhinacaan aad u dhismin baa jiro oo dhinacan hoteelka la yiraahdo hotel qadiim oo waxaa jira si uu dhiso aan aad u dhisnayn oo bandar qaasim la yiraahdo tawfiiq meel la yiraahdo u dhow aagaasaan horta waagii hore aan u joogi jiray aagaasi weli wax badan laakiin dhul kale oo aad u dhismay bay leeyihiin oo meeshii aargada ahayd ee xataa calaamada la suri jiray xataa meeshii xataa waxaa laga dhisay hal qurux badan oo idankii lagu ridi jiray fooxa oo maadaama puntland ay tahay dhulkii udug la waafajiyey xataa ka socda idankii baa loo geliyay laamiyadii waa la balbalaadhiyey oo si kalaa laga dhigay marka laakiin xaafadaha qaarkood ma aqaanada magaaladu way kala qaalisan tahay waa iska dhismi doonaan kuwa jigjigo kale uun kuwana way dhismi doonaan waxan baa kale soo hayay ama gaarisa hadda waa dhul anigu aan ka gatay weligii muuna qaaliyoobayninba dhulka qaarkiina markaba uu isbedelahayay marka magaalooyinka soomaalidu inta badan dhinac bay ka rayin gaarisa waxay u baahan tahay master plan gaarisa markii loo eego magaalooyinka kale hadda aan ka sheekeynayno laakiin aad bay u dhisan tahay way dhisan tahay oo hoteelada ku yaala meelay ku yaalaan meelaha soomaalida qaar ma jiro standardka de hoteelada laakiin de waxay ku yaalaan meelo guda ah laakiin markii la arko xaafadaha hadda xaafadan iyo wadooyinkeeda markii la inta yare laamiga ee xaafada aada iyo midaan magaalada ka dhex baxday kor aada mooyaane xaafadahan suuq oo kale markaad xagga webiga suuqa booliska saa u gasho meelaad martiin maysa governor nadiif waan u tegi doonaa insha Allah fariinta waan gaarsiin doonaa nadiif intuu joogo magaalada Masar balaan ha mariyo hadduu marin waayana waqtigu kulleeyda asaga waaba laba si jeer way dhamaatay moogta waliba reer garowe aan mid kugu daray isku tashi baa lagu dhisay buundooyin waaweyn oo aad yaabaysid oo isku tashi lagu dhisay baa jiro oo buundada aan soo duubay oo kale ay ku jirto shirkad Turki ah baa dhistay laakiin shacabka yaa lacagta bixiyay oo $5 iyo wax noocaas in la isku daray wala ii sheegay